الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. ودرسي كوبي طبنادي كتاب كان توفة المودود بأحكام المولود. وعن سو قارني باب كي سيديدات باب كي سيديدات وحكو سابسان يهي تسمية إن المهم مقع الله بحيوه يوحي أحكامها أو أرنتاس كو سابسان مقع يدا لبحسن كرو كوان لبحسن كرين كو كراهية وحاسودان. horta waqtiga tasmiyada ama xilliga la magacaabayo waxaa bannaan maalinta uu ilmuhu dhashaba in loo magac bixiyo. waxaa kaloo bannaan in maalmo kadib ilaa 3 beri kadib loo magac bixiyo. waxaa bannaan in maalinta caqiiqada ama wanqalka la sameynayo maalinta 7aad loo magac bixiyo, waana sida fiican. waxaa bannaan amarku marka waa waasic, xilligii loo magac bixiyo taa waxaa dhacday isagoon weli dhalanin in loo sii magac bixin karo. waxaa jira marka arrimo istidraad uu sheekhu fawaa'id uu si u soo ururiyey. qisa ibnu sacad fi tabaqaadna uu ku wariyey anas binu malik baa wuxuu leeyahay salma gabadh lo odhan jiray oo rasuulka sala allahu alay wasalam mawladiisa ahayd ayaa ahayd qofkii ibraahim oo maariya ay dhashay ka umulisay, iyadaa umuliso ahayd. marka waxay sheegtay markay ka umulisay ogaatay inuu wiil ay dhashay bay odaygeedii abiraafic ninkii qabay bay u sheegtay. waxay ku tiri maariya waxay dhashay wiil, orod rasuulka ugu sheeg oo u bishaare sala allahu caleyhi wasalam. rasuulku u bishaareeyey, rasuulkuna hadiyad buu markii siiyey. ibnulqayim baa marka wuxuu leeyahay qisada maariya iyo waladkeedii ibraahim waxaa laga faa'iideysan waxyaabo badan oo sunnooyin abaa ku jira. horta kow, hadiyadda in la aqbalaa ku jira. waxaa kaloo laga qaadanayaa hadiyadda in haddii addoomaha xitaa ka timaada laga qaadan, dad xitaa ahlu kitaab ah oon markaa muslimiin ahayn in laga qaadan. bishaaro in loo bishaaranayo qofkii ilmo loo dhalo loo bishaareeyo, in qofka bishaareeyey naftiisa wax la siiyo, in wanqal loo sameeyo, maalinta 7aad laga dhigo, madaxa la xiiro, wasniga intay timuhu noqdeen oo fida-ana la bixiyo. waxaa kaloo masale uu ithaareeyey ku saabsan timaha ma la aasaya mise waa la iska tuuraa. waa masale guud xitaa. timaheena hadda marka la jaro oo kale timaha ma la aasaa mise waa maaragtay la dhigaa. waxaa kaloo lamid a caqiiqada marka la gowraco lafaha ma la jejebinaya. masaa-ishaas waxaan fili waagi hore in wada xusataan iyo dadku timahaya waa la ururin jiray oo meel intii lagu xidhaba si loo adkeyn jiray. lafaha lama jebin jirin wanqalka oo meel baa lagu xidhi jiray. waxaan xusuustaa anagoo yaryar intii naloo dhiibo baanu geed kusoo xidhi jirnay, meel dheer baa lagu soo xidhi jiray. marka arrintaas wax horta daliil ah oo diidaya oo saxiixa oo rasuulka ka sugan midna ma jiro. axaadiis baa kusoo aroortay laakiin waa wada daciif, looma tiirin kara rasuulka. laakiin culimadu waxay leeyihiin yustaxsan, waxaa fiican in timahana la maaragtay meel lagu aaso, lafahana aan la jebin, waa sida wanaagsan. laakiin fal amru waasic oo wax mamnuuca ma ah. arrinta kaloo ku jirta waxa weeyaan tasmiya, yani xadiidka laga qaadan maalintuu dhashaba in la magacaabi karo. horey baan u sheegnay in ilmuhu markuu dhasho xitaa hooye aan dhalin ay nuujin karto, in waalidku haddii ilmihiisu uu jirado uu soo booqdo. arrintaa waxay ahayd markii ibraahim oo wiilkii yaraa ee rasuulka sal ly slam maariya ay dhashay uu xanuunsaday, weliba uu geeriyooday inuu u yimid, kadibna isagoo indhihiisu ay ilmeynayaan. marka hadal cajo badanna uu yidhi xadiidkii indhuhu waa ilmeyn, qalbiguna waa murugoonayaa, waxaan ilaahay raalli gelinhaynina dhihi mayno. ibraahimow ka tegidda aada naga tagtayna maxsuun baan nahay oo xusni iyo murug baan dareemayna. rasuulku wuxuu jamciyey baa la yidhaahdaa jamaca bayna alraxmati waalridaa bilqadaa. yacni raxmadna wuu muujiyo ilin baa ka socota, alqadaa walqadarki ilaahay oo geeridiina raalli buu ku yahay. waana sida akmalkoo fiican baa la yidhaahdaa. taas waxay ka duwan tahay dadka qaar aan labadaa jamcin karin, sida fudayl ba laga sheego oo inuu jamcin waayo oo kadib uu farxad oo kale isagu muujiyey geeri saas oo kale uu timi. ibnu taymiya raximahullah baa arrintaas soo warinaya. waxaa kaloo laga qaadanayaa qisadan in loo ooyayo meydka, indhuhu ay ilmeynayaan, ay ilmeyn karaan laakiin oohinta dee dheer aan la ogolayn. waxaa kaloo laga qaadanaya inuu qofku meydka loo murugoodo. waxaa laga qaadan ilmaha yar hadduu dhinto in la dhaqo,
in salaadna lagu tukado waana qowlka jumhuur ahlicilmi weeye. markii arrintii shamsada qoraxdu ay madoobaatay dadku waxay isla dhexmareen qoraxdu waxay u madoobaatay limowti ibraahim geeridiisii, laakiin rasuulku khudbuu aqriyayo wuxuu yihi arinta qoraxda iyo qamarka dayaxa iyo qoraxdu waa aayatan min aayaati illaah, marka umana madoobaadaan qof dhintay iyo noloshiisa midna. ilaahay baa arintan dadka ku cabsi gelinaya, addoomihiisu ku cabsi gelinaya. waxaa kaloo laga qaadanaya rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yihi xadiis cajab badan oo bukhaari iyo muslimba ku sugan, ibraahim wuxuu leeyahay ina lahu murdaca oo filjanna, jannada ayuu ku leeyahay hooyo nuujin doonta, jannada nuujintiisii loogu dhammaystiri doonaa. ayib waxaa kaloo laga qaadan oo isaguna dardaarmay rasuulku u dardaarmay nimankii aqbaata ahaayoo maariya alqibtiya ay ka timid oo masar deganaa in khayr loo dardaarmo. wuxuuna yihi ina lahum dhimmatan waraxima. waa xadiis isaguna saxiixa oo rasuulku uu ka waramay arrin dheer ahaydoo masar baad furan doontaan, dadkeeda u dardaarma khayr, fa ina lahum dhimmatan waraxima ayay leeyihiin. marka dadkaasna in axaadiis badan baa si gaara ugu soo aroortay. intaasoo dhan waxay kamid tahay waxyaabaha laga qaadan. weli magac baabkii tasmiyadan kusii jirnaa insha allah.